kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona qaramada midowga oo bayaan culus ka soo saartay dadkii laga musaafiriin Laascaanood afar ka mid ah ISIS oo lagu dilay Suudaan farmaajo Addis Ababa kula kulmay Museveni iyo Abiy Ahmed daawadayaal ku soo dhawaado qodobadaas oo faahfaahsan hay'adda isku dabiridka gargaarka qaramada midowga ee UNOCHA ayaa bayaan ay soo saartay kaga hadashay barakicinta qasabka oo haatan Somaliland ka wada Laascaanood taasi oo lagu beegsanayo dadka ka soo jeeda koonfurta hay'adda ayaa shaaca ka qaaday inay aad uga walwalsan tahay xaaladda dadka laga soo musaafirinaya magaaladaasi kuwaasi oo isugu jira caruur dumar iyo rag hay'adda qaramada midowga oo qaabilsan howlaha isku dabiridka gargaarka ayaa sheegtay inay sidoo kale diyaarinayso qorshayaal degdeg ah oo lagu caawinayo dadkaasi waxaan aad uga walaacsanahay warbixinada barakaca qasabka ah oo la qorsheeyay maalmaha socda ayay lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay'adda UNHCR sidoo kale hay'adani ayaa ugu baaqday hay'adaha samafalka inay gurmad degdeg ah u fidiyaan dadkaasi iyadoo oo la kaashanaya maamulada ka jira halkaas waxaan ugu dambeyn u baaqaynaa hay'adaha samafalka inay bixiyaan oo dadajiyaan gargaarka degdeg ah iyadoo la kaashanaya maamulada maxalliga ah si loo helo xal ayaa mar kale lagu yiri bayaan ka soo baxay hay'adda isku dabaridka gargaarka ee qaramada midowga qaabilsan bayaankan ayaa ku soo aadaya iyadoo Somaliland dad badani oo ka soo jeeda koonfurta ay ka soo musaafirsay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo gaadiid laga soo qaaday magaaladaasi waxa haatan lagu soo dhabeeyay deegaanada Puntland si kastaba Somaliland ayaa cabareen xoogan kala kulantay daabuleynta dadkaasi oo u badan ganacsato muddo sanado ah ku dhaqnaa deegaanada maamulkaas haatana howlgallo amni oo laga fuliyay dalka Suudaan ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay afar xubnood oo laga sheegsan yahay inay ka mid ahaayeen dagaalyahanada kooxda isku tilmaamta khilaafaadka Islaamiga ee ISIS howlgalkan ayaa laga geystay deegaanada koonfureed ee Jabra sida laga soo xigtay adeega guud ee sirdoonka Suudaan wakaalada wararka ee Sunna ayaa ku waramaysa in sidoo kale uu howlgalkani ku dhintay sargaal military halka saddex kalena ay dhaawacmeen waxaa dhanka kale gacanta lagu dhigay afar xubnood oo argagixisada ka 12 eedeysayaal oo ka soo jeeda wadamada kala duwan ayaa sidoo kale la xiray haatan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo shalay la caleemo saaray kadib markii xisbigiisa uu ku guuleystay doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay qoraal ay madaxtooyada Soomaaliya soo dhigtay barta Facebook ayaa lagu sheegay in Farmaajo iyo Abiy ay iska xog wareysteen xiriirka laba geesoodka ah ee labada dal oo ay saldhig u tahay daris wanaaga is-ixtiraamka iyo xoojinta la dagaalanka ka dhanka ah argixisada Al-Shabaab Farmaajo oo shalay khudbad ka jeediyay caleemo saarka Abiy Ahmed ayaa sheegay inay muhiim tahay in xoojiyaan iskaashiga wax wada qaybsiga nabadgelyada ganacsiga iyo xal u helidda musiibooyinka dabiiciga ah Itoobiya iyo Soomaaliya waxay leeyihiin xiriir laba geesood ah oo taariikh ah iyo xiriir saaxiibtinimo oo xoogan oo ku dhisan is-ixtiraam iyo isku xirnaan sii kordhaysa ayuu yiri Farmaajo dhinaca kale madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in Farmaajo uu sidoo kale Addis Ababa kula kulmay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ee ku qotoma dhinacyada iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka iyaga oo xoojinayay iskaashiga la dagaalanka lagula jiro argagixisada daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa wixii dalka iyo daafaha caalamka idinkaga haynay wararkeena maanta waxa idin soo saaray oo idin akhrinay anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxa idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah